wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Mareexaan ayaa maanta xadhiga ka jaray 2 kiiloomitir ee ka harsanaa wadada isku xidha Wajaale iyo Kalabaydhka. Wadadaasi oo hirgelisay dawladda hoose degmada Wajaale ayaa waxaa halkaasi goobjoog ka ah wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland Mudane Shacay Maxamed Muuse, maamulka heer gobol iyo heer degme gobolka Gabiley, maamulka degmada Tog Wajaale. waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay marxaladii kala duwan ee wadada xadhiga maanta laga jaray soo martay gudoomiye ku-xigeenka degmada Tog Wajaale ahna kusimaha gudoomiyaha degmadaasi Mursal Nuux Ismaan. waxaan isagana halkan tacsi tiiraanyale uga dirayaa maanta gudoomiyihii degmada Wajaale injineer Aadan Muuse Cilmi Shiine oo hooyadii ay ku geeriyootay dalka Ingiriiska. Wajaale sidee ahayd markii hore iyo maanta sidee waxaan ka warqabnaa shalay markuu madaxweynaha talada dalka haya xukuumadda uu garwadeenka ka yahay Mudane Axmed Maxamuud Siraayo markuu talada dalka ku guuleystay Wajaale sidee ahayd waan kooda dhagsanay waddo may lahayn dhaqtar may lahayn biyana may lahayn marka waa shalay iyo maanta weey. sidoo kale waxa iyaguna hadalada iska daba maray maayarka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdilaahi, wasiirka wasaaradda warshadaha Shacay Maxamed Muuse suuga dirno walaalkeen injineer Aadan Shiine oo hooyadii ku geeriyootay dalka Ingiriiska inuu Ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo marxuumadan oo naxariisto. runtii adduunyadu waa noocaas oo dhamaantana halkan wanqalkii wax qabadka gudoomiyaha inuu joognaa isagiina hooyadii buu ilka dhigaya. runtii waa noocaas adduunyadu Ilaahay ha u naxariisto. aad iyo aad baan soo dhaweynaa wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu wadadan qiimaha loo xadhiga ka jaro maamul ahaan wixii awoodayda hadday huud noqoto hadday biyo noqoto iyo hadday garabsiin kala tahay baan ku howlanahay. laakiin waxa jira xanuuno ay runtii qabaan xooluhu la wada meelaha qaar 40 neef baa markuu wada dhimanaya. runtii dadkii ay u yimaadeen ay maganta u haayeen iyo iyagiiba haddii xanuunka wax laga qaban waayo way israacayaan. marka wasaaradda xanaanada xoolaha waxa leeyahay waxa weeye hadday tahay barigii dadka abaartu ku dhacday bariga xoolahoogii iyo hadday noqoto goboladan galbeedka u soo hayaameenba inaad tiimam degdega u dirtaan oo caafimaadka xoolaha wax ka qabsan karaan. runtii waxa weeyaan wadadani waxay ahayd meelaha ugu maaragtay ilku hayeenka ah ee waxa weeyaan dadka magaalada yimaada ama cid joogtaba ha ahaatee ay isha ku hayaan. cadeeduna way kulushahay dhowr qodob baan doonayaa in dul istaago. maanta wadadii inagu ahayd waxa la yiri adduunyada waxa ugu qurux badan leh waa daawuska, laakiin waxa loogu dawgalay nabaraan dawo lahayn oo markuu nabar ka arko ayuu naxayo dhintaa. waxa leeyahay Soomaaliland quruxdeeda ganacsigeeda iyo inteedu waxa ahayd Wajaale. Wajaalena waxa nabar ku ahaa wadada 2 kiiloomitir. magaaladu waa magaaladii dalkuna waa dalkii wasaaradda waxaana gabagabadii makarafoonka la wareegay wasiirka hawlaha guud iyo guryeynta Cali Mareexaan oo aad ugu mahad celiyay maamulka degmada Tog Wajaale sida dhaqsaha leh u hirgeliyeen 2 kiiloomitir ka harsanaa wadada isku xidha Kalabaydhka iyo Wajaale. marka hore waxyaabaha la iska kaashado ee shacab iyo dawladba iska kaashadaan inay si degdeg u fuliyaan. mar labaadka waxay muujinaysaa waa aragnimada iyo khibradda aynu imka u helay dhismayaasha wadooyinka oo 6 sano ka hor 7 sano ka hor 5 sano ka hor wadooyinka waxaynu ka fikiraynay in China iyo Jarmal iyo ay dhisi karayaan, laakiin imika intaynu dhagax dhignaaba inuu bil ku dhameystirayna wadada dhererkeedu inta yahay. waxa aan halkan uga mahad celinayaa guddida qaranka ururinaysay ee horumarinta wadadan ka qayb qaadanaysay oo imika halkan gudoomiyaheedii uu ka hadlayay oo hawsha runtii la'aantooda aanay suurto gasheen. waxaan si gaar ah iyaga ugu mahad celinayaa waxa weeye wadadan waa la iska kaashaday. si kastaba ahaatee 2 kiiloomitir ee maanta laga hirgeliyay gudaha magaalada Wajaale doonta weyn ka tari doona isku socodka gaadiidka u kala goosha labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya. baabuurta xamuulka ka soo qaada dekada Berbera ee geeya dalkan jaarkana ee Itoobiya. Guuleed Cali Ibraahim Kacase, warbaahinta caalamiga SBC, degmada Tog Wajaale.